cabdirashiid ayaa intii uu dib u soo booqanayay dalka waxa uu jeclaystay inuu soo arko goobtii uu ku dhashay iyo gurigii uu ku soo barbaaray si uu xasuusta noloshiisa dib ugu jaleeco maadaama aanu magaalada waxba ka xasuusan ayaa waxaan la ballannay habaryartiis oo mar uu booqday maalin ka hor u sheegtay inay soo tusi doonto gurigii uu ku noolaa yaraantiisii markuu soo noqday hadda intaas muddo dheer ka sheekay halkan ninkan intaas maqnaa hadda muu soo degay laakiin halkan إنه زوديو إن شاء الله إنه زوديو إن شاء الله إنه زوديو ورجينين ما دو وأقل فيه شو قصته ورجينين زرحنا إن شاء الله إنه على صوديو ورجينين إن شاء الله إنه يمادو لكن قربه الروائل وش كذي جوجان ملاني مكاني وما بابو كيف سنو وش لكن جو حتى ما قربها هالك سن بكو هنتيا هاي وحري وري قابل بابو مقالة شوق تبغى قرا يوم بكو هنتيا الكاسم بهنتيا عيد عيد هذا سن بهنتيا ما قرأت الكاسوات هتكش قيس ما قرأت هالكاسو ما هنتئة مركه هالكيان الموجان وش هيك ساكن ما قرأ وخبر له مش هيك واني يردي سبت البحثنا صابرتي ما بتاعي ولي بنا اسمي واحد يدون سمين كره مركوينو هالكن لسام إن شاء الله ما يوعد صيا وابن اسكوغني تا أنا قلت لي دي ما حتى ميو خيامين أيه حتى ميو خيامين وش هيك ما عاد ما عاد inkastoo aanan hubin inuu cabdirashiid qaatay talada habaryartii oo yaraantiisii nooga sheekaysay ayaan waxaan u dhaqaaqnay gurigii cabdirashiid ugu dambaysay carruurnimadiisii waxa uu booqday goobtii uu ku soo barbaaray meelihii uu yaraantiisii ku ciyaari jiray iyo guri xasuustiisa dib ugu ceshiyey wakhti ka duwan kanuu maanta ku soo booqday maalmihii ugu fiicneed intaan dhulka jooga waxay ahayd maalintan gurigii meeshii aan maanta ku soo koray aan tagay horta marka hore guriga moogta dee 28 years 28 sano dhulka ka maqan moogta ma ogeen moogta meel ahaa markaa habaryartay baan helay aan ka codsaday inay maanta gurigay soo tusto بري على بلينا كذا حدا وقرص هذي إيه هالكن هو بات كم كذا تانك بسرعة تري صح وتهالك تانك ما قرص أنا بري واحد يقول لك لا هربت ما هالكن جيت كدامل كقرن يسي جيت كدامل كقرن يسي كانوا هاي بلاد كقول صح وان مقنعي اسمه لي عبد الرشيد بحق بصدي لاين waxaan sideen tan tuuray baan adigo saa u jiifa ku soo gal marka sadeetana waxba maad noqon in yar ku taabto صح waa ka balag xerar riyad ba halkan laga dhigay laakiin kaaba dheer oo ay kana waxa weeyaan waa kan gurigii dabeetana dabeeda dad ku jire waa rune lagu jire haday ilaan tusba tiro waan kaay berendida mana soo madis berendida mana soo madis xaga damana ka وكا حاجة ضمنها تبغى يعني marka wallahi nabiga waxa uu soo kordhay moogtay emotions strong emotions soo xasuustay saan soo koray moogtay childhoodkaygii iyo saaxiibaday iyo environmentka sidoo ahaa markaas ayay imagekii imaatay igu soo laabtay aad iyo aad baan maanta ugu farxay wax weyn oo iga maqan waxaad mooday maanta moogtay inuu igu soo kordhay iyo to complete the picture marka aad iyo aad maantaas u fiicnayd ma garanayo xasuustaas iyo taariikhdaas hore ee soo maaxatay inay ku dhiirigelin doonto inuu ka mid noqdo inta go'aanstay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan hase yeeshee waxaa galabtaas wejigiisa ka muuqday farxad aan la qiyaasi karin beegsiga dalxiiskaaga beeladkaaga soo haybi boorame ku daanshood batalaaleyo soo arag berberaay magaalada hargeysa haddii aad ku dhex socotid waxaad arkaysaa qurbo joog dalal kala duwan ka kala yimid oo fasaxyo gaaban ama dalxiisba halkaas ku jooga
inkastoo ay fududahay in dadkaas badidooda aad ka soo dhex sooci kartid dadka intiisa kale haddana way adag tahay inaad farxaan oo malabka ku gada waddooyinka magaalada agteeda aad ka soo dhex socdo dadka deegaanka. waxa uu farxaan ii sheegay inuu ku noolaa waddanka Maraykanka inta aanu hamiga malabgadidu ku dhalan dalkana dib ugu soo noqon. waxaan ka imi magaalo la yiraahdo New York State, which is United States bay ku taallaa. ilaa 14 sanadood baan deganaa. dalkii waan iskaga imi marka magaalada Soomaaliland ma ku soo noqday dalkii hooyo aabo oo wax mid kastaba wuxuu soo noqonayaa uu shaqo tagaya xagga inuu soo noqdo oo waxtar magaaladiis dalkiisii keeno. marka waxaan keenay wax la yiraahdo in malab saafi company aan asaasay. shinni badan baan dhaqday ilaa 140 saxaaradood baan samaystay oo aan ku kala aan digdigo ilaa Boorame ilaa iyo in magaalo la yiraahdo Negele oo dalka xitaa Ethiopia ku taala oo iyo buurahan gacan libaax daalo surad meelahaas oo dhan oo sirta nolosha baashan la yiraahdo dalkeenana aad iyo hawadeedu aad buu fiican tahay aad buu xiiseeyay. marka waxa igu dhiirigeliyay inaan dalkayga imaado aan ka shaqaysto waa sidaa. aad ugu faraxsanaa umaleynaa marka nolosha hadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. yes dad baa fara badan baa igu yiraahdo maxaad New York ugu noqon weeday maxaan ku furayaa New York waa tan argaxisadii iyo mashaakilkaas ay jiraan oo isku dilayay magacaaga oo kaliya dhibaato kugu ah. marka dalka hooyo aabna iskaymi alxamdulillah waan iska shaqaystaa. hamiga ganacsi ee farxaan waa uu durugsanaa waxaan u ekaa nin ay u caddahay waxa uu doonaya hase yeeshee waxaan ii caddeen inay jiraan qaar sidiisa oo kale dibadda ka soo noqday doonayana inay sidan oo kale hawl u bilaabaan. ishu nolosha benta ha ilowdo barafkii soo booqo ciidana. intii uu dalka ku sugnaa waxaa hawsha uu u tegay u dheeraa dalxiis uu magaalooyin fara badan ku soo maray oo aan islahaa waxaa laga yaabaa inay soo dedejiso inuu gaaro go'aanka ah inuu London ka soo dalab furto. Good afternoon. I'm reporting from the wonderful country called Somaliland on a wonderful day with my friends. And we're here sitting in a very traditional coffee house, a typical coffee house. And this is the way it comes. Just watch that guy. Man in action. Very good. Yes. And you can see the flag. saadaashaydii aan islahaa Cabdirashiid dalka ayuu dib u soo degi doonaa waxaan xaqiiqsaday inaanay sax ahayn. Cabdirashiidna inkastoo uu aad u jeclaystay dalka haddana duruufaha isaga u gaarka ah aysan u saamaxaynin in uu dhowaanahan dalka dib ugu soo noqdo taladii habaryartiisna qaato. imika aniga planskay kuma jirto inaan maanta dhulka noqdo because nolol baan ku leeyahay moogta Ingiriiska guri baan ku leeyahay xaas baan ku leeyahay. ta kale haddaan iminka markaa shaqada ka tago maanta inay lacag aniga soo galayn dad badan baa oo dhulkii jooga ayaa iyaguna dhibaato badan gaari karta because waxaan ka mid ahay dadka maaragtay qorbahood jooga maaragtay lacag u dira dhulkii. marka hadday lacagtaas maaragtay aniga iga goodo dad badan baa anigoo qura maahay dad badan baa maanta ku xidhan. marka dadkaasna waxa ka go'ay moogtay qarashkan u dir lahaa. marka aniga waxay leedahay imika inaan Ingiriiska joogo aan ka shaqeeyo saas maaragtay ayaa u fiican aniga iyo dadkii maaragtay igu xidhnaaba. jaamacadaha magaalada Hargeysa waxay soo saaraan arday badan oo aan badidoodu haysan shaqo ay noloshooda ku maareeyaan iyaga oo qaar badani ku haminayaan in ay dalka ka soo hayaamaan maadaama aanay wada heli karin shaqo u qalanta cilmiga ay soo barteen. waxaase uu Cabdirashiid Cabdikariin iyo Aadanba la wadaagay muhiimadda ay leedahay qurba joogga Soomaalidu ahi inay aqoontooda iyo dhaqaalahoodaba dib dalka ugu soo celiyaan si baahiyaha jira ay wax uga daboolaan. dadka qurbaha jooga laba sibay ay u caawin lahayn dhulka. mid waxa weeye marka hore skillska iyo waxa lagu bartay dhulka qurbaha sidii uga faa'iideysan karnaa dhulka.
anigoo kale for example waan noqdaa marmar dad baa wax soo baraa markii ii suurtooda waan noqdaa dad baa wax soo baraa marka skills transfer marka hadday dadka qurbaha jooga hadday kari karaan intaa aad baa loogu baahan yahay dhulka taa kolay nolol kasta adduunka ku wanaagsan waxaa jirta maxay ahayd tooy maahmaaha ay Norwegian leeyihiin oo la yiraahdo butte arbra yema arbest waxay dibadda way fiican tahay laakiin guriga ka sii fiican dadkiina iyo dalkiina ka tagteena xaq ayuu idinku leeyahay qof wal oo kasta halku ka yimid isagoo nabad oo wanaagsan ilaahay ku soo celiyo haddii aad ganacsi gashan kari weyday ma aha daruuri inaad ganacsi gelisid haddii aad aqoon leedahay inaad u timaadid oo week ama 2 week volunteer adiga oo ku shaqeeya aad ku soo noqotid oo aad aragtid maxaan ku dhahdaa isbedelka aad keeni kartid shakhsi ahaan waxbarashadu waa u muhiimsan haddii aanay wax ka baranin dalalka ay joogaan waxa weeyaan nasiib uma helayaan dalkoodii markay ku soo noqdaan inay u faa'iideeyaan waxay ku faa'iideeyaan oo aqoona waa inay la yimaadaan fikradda iyo maskaxdana ay ku hayaan inay marun ku soo noqdaan dalkoodii iyo dadkoodii cidda la sugayo waa cidda xirfadda iyo aqoon iyo maxaan ku dhahdaa waxay ku soo kordhin karto mujtamaceeda leh bal marka idinka oo aan ka niyad jabin burburka badan baahida badan maxaan ku dhahdaa walaaca badan ee dalka ka muuqda inaydun isku taxallujisaan oo aad dareentaan inaad wax ka bedeli kartaan investment wax la yiraahdo inay sameyn karaan dadka qurbaha jooga inta maaragtay shirkada la furi kari lahaa isku tagi kari lahaa waqti lacag inta la ururiyo laga sameyn kari lahaa mashaariic dhulkii taasoo lacag maaha waxay sameynaysaa waqti dad bay shaqo u furaysaa marka investment badan oo loo baahan yahay marka labada meelood baa aniga la tahay in dhulka laga caawin karo intii aan dalka ku sugnayn waxa ay dad badani inoo qireen in biilka qurbajoogu ay qoysaskooda u diraan uu yahay mid muhiim ah hase yeeshee aanu wax weyn ka qaban karin horumarinta dalka daaraha aan lagu noolaanin ee dalkii laga dhisanayo iyo dalxiiska lagu tegayo inaysan wax weyn ugu fadhiyin dhaqaalaha dalka ayay tilmaamayeen maalgelin dhaqaale iyo aqoon dib ugu noqoto dalkii in maanta baahi weyn loo qabo ayay badi dadkii aan la kulannay ay qabeen haddii labadaas la helana in wax weyn dhaqaalaha iyo nolosha dad badani iska beddelayaan ayaa ahayd midda ay isla wada qirayeen fariintaas ku socotay qurbajoogga innaga oo xambaarsan ayaan cabdirashiid aniga iyo asxaabtii inala socotayba aanu ka soo duulnay dalkii dadkiisii qaadilaadeen qaadna ay daribeen noloshiiba ay ka boosteen qurbajoogu waddankeena qof kaloon ku haleeyo qiyaasti mahayeen ku darsada qorshaha ku darsada qurbajoogu waddankeena